hoteelka ugu raaxada badan adduunka oo aan berri bad iyo cir midkoodna aan ku oolin. waxa uu leeyahay 447 qol oo caadi ah iyo kuwa sida gaarka u nashqadaysan ee qaaliga ah. waxa lagu tilmaamaa kan ugu caansan hoteelada oo dhan marka la eego magaca uu sito. adeegyada uu bixiyo darteed waxa uu ka mid yahay hoteelada ugu raaxada badan hadiiba uusan ahayn kan koowaad. waxaa ku baxay kharash gaaraya $100 milyan oo dollarka Mareykanka ah si milkiyadiisa loola kala wareego. hadda hoteelku waxa uu yaalaa xeebta magaalada Dubai. waxaa boqortooyada Ingiriiska ka iibsaday dalka Isutaga Imaaraadka Carabta isla mar ahaantaana hotel u rogay. waa 6 dabaq. hoteelkan waxa uu ka weyn yahay Titanic oo degay sanadkii 1912. Nakheel Properties oo ka tirsan kambaniga Dubai World ayaa iibsaday isla markaana si joogto ah u dhigay meel aan waxba ka fogeyn Burj Khalifa iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai, inkasta oo uu markii loo baahdo uu dhaqdhaqaaq uu samayn karo. halkani waa Queen Elizabeth II, laakiin berigii hore ahaan jiray markab dalxiis oo caan ka ah dunida. mar ayaa lagu qaaday oo la dulgeeyay Nelson Mandela. marmarna boqoradii geeriyootay ee Ingiriiska ee Queen Elizabeth II ayaa dadka ku qaabili jirtay. waa sababta uu u yahay markabka ugu caansan. hadda qolkii boqoradda waa laga kireyn karaa isaga oo hotel ah. waa markii loo rogay hotel raaxo oo aad looga shaqeeyay isla mar ahaantaana maalgelin waalan lagu sameeyay. markabku waxa uu sameeyay 6 milyan oo mayl oo socod ah ka hor inta aan howlgabka laga dhigin, dib loo habeyn isla markaana hoteelka laga dhigin. waxa hoteelka ka dhex adeega 293 shaqaale caalami ah oo ku takhasusay adeega hoteelada, soo dhaweynta martida iyo cunto karinta, cabitaan samaynta iyo u khidmaynta macaamiisha, gaar ahaana marka ay jiraan xaflado lagu qabanayo hoteelka. dadka boorsooyinka jiidaya ee ku soo socda qofka soo dhaweeyaha ah iyo sheekada dhex maraysa iyo weliba sida uu hoteelku u weyn yahay, weligaa isma oran doontid halkan ayaa biyo ka hooseeyaan. hotel Queen Elizabeth II oo ah magaca hadda loo yaqaano hoteelka ayaa kolkii hore waxaa isaga oo markab ah dhisay shirkadda loo yaqaano Cunard Line. markabku waxa uu ka diiwaan gashnaa jasiiradda Bermuda. waxa uu markab dalxiis ahaa intii u dhaxaysay 1969 ilaa 2008. intaa wixii ka dambeeyay, gaar ahaan laga soo bilaabo 2018, waxa uu magaalada Dubai uu ka ahaa hotel qaali ah oo lagu raaxaysto. xafladaha dhalashada, martiqaadyada, cashooyinka ah iyo xafladaha kale marka ay dhacayaan waxa aad ugu dhaaran doontaa in aad meel dhulka ka mid ah aad joogto, laakiin cirkana ma jirtid, dhulkana ma joogtid, badda dhexdeedana kuma jirto, oo waa adigan hadba qol galaya oo hadba meel cafeteria ah ka shaahaynaya. gaarigii boqoradda ayaa weli dhex yaalla hoteelka. waa gaari loo daawasho tago. sidoo kale qolkii boqoradda cashada loogu diyaarin jiray iyo hoolkii weynaa ee ay ku cashayn jirtay ayaa qofkii doonaya isaguna ku cashayn doonaa. waa hotel gebigiisuba ah taariikh guuraysa. waa lasii buukin garaystaa oo inta badan waa uu camiran yahay hoteelku. qofkii doonaya inuu qol uu ka dego waa in uu muddo ka hor sii qabsadaa oo uu online booking uu sameeyaa si loogu diyaariyo wax kasta oo uu u baahan yahay iyo qolkii uu ka degi lahaa Queen Elizabeth II ama Queen Elizabeth II. xafladaha qaarkood waxaa loo diyaariyaa kooxaha muusikada oo si live ah ugu tuma martida. waxaa inta badan la daaraa heesa dhaqameedyadii hore iyo ciyaaraha muusikada dabacsan loogu talagalay. waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan. Bulqaas Media ayaad nagala socotaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha naga ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan. wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska. aad ayaad u mahadsantihiin. rabbiga ha idinla jiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.